waxaan ognahay in farta Soomaaliya la soo bandhigay sanadkii 1972 laakiin waxaa jiro saabooyin badan oo aan badankeen la soconin. Magacaygu waa Cabbaas Mustaf, halkanina waa Rumaan Media. ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. intaanan u guda galin muuqaalkeena, like saar fiidiyogan wuxuu naga saacidi karaa YouTube-ka inuu dad badan gaarsiiyo. intaanan badan waxaan aaminsanahay in taariikhda iyo sooyaalka farta Soomaaliya ay ku kooban tahay dowladdii kacaanka. waa sax, waxaa la hirgeliyey sanadkii 1972, laakiin qoridda farta Soomaaliya waxay leedahay taariikh dheer oo ka horeysa dowladdii kacaanka. sanadkii 1920 ayay ahayd markii la soo bilaabay hindisaha qoridda farta Soomaaliya. ilaa xilligaas waxaa lagu taamayey in si rasmi ah loo qoro. rag badan ayaa dadaal sameeyey oo la yimid hal abuur, sida Cusmaan Yuusuf Kendiid oo soo saaray sanadkii 1922 far lagu magacaabi jiray Cusmaaniyiah. waxaa kaloo ka mid ah ragga dadaalka sameeyey Ibraahim Xaashi Maxamuud iyo Xuseen Sheekh Axmed Kadare, iyagoo soo saaray qoraal farta ah. sanadkii 1950 ilaa 1960 waxaa socday dood ah sida loo qori lahaa farta Soomaaliya, waxaana laga doodayey in Carabi ama Laatiin ahaan loo qoro. 1 July 1960 markii uu dalka xorriyadda ka qaatay, waxaa la soo bandhigay dhowr qoraal oo ka mid ahaa farta Shire Jaamac oo Laatiin ahayd iyo faro kale. tani ayaa timid markii dowladda madaxweyne ka ahaa Aadan Cabdullaahi Cusmaan ay soo saartay guddi ka soo baaraandegay qoraalka farta Soomaaliya. guddigaas waxaa xubno ka ahaa Muuse Xaaji Ismaaciil Galaal oo guddoomiye ka ahaa, Yaasiin Cusmaan Yuusuf, Maxamed Saalax Ladane, Ibraahim Xaashi Maxamuud, Khaliif Suudi, Mustaf Sheekh Xasan, Shire Jaamac Axmed, Xuseen Sheekh Axmed oo ka ahaa xubin, Yuusuf Meygaag Samatar wuxuuna ka ahaa xoghaye. sanadkii 1961 waxaa dhacay mudaharaadyo lagu soo horjeedo in farta Soomaaliya laga dhigo Laatiin, iyadoo masaajidda xitaa laga diidanay arrintaas. waxayna dadka ku boorinayeen Laatiin waa Laadiin, waxayna ula jeedaan Laatiin ma laha wax diin ah. guddiga la soo xulay waxaa sanadkii 1961 la soo hordhigay 11 farood oo lagu qori karo luqadda Soomaaliya, oo markaas alifeen aqoon-yahano Soomaaliyeed. laakiin guddigan waxaa socodsiin waayay howshooda, waxaana hareereeyay mudaharaadyo khilaafsan, maadaama ay guddiga ku jireen rag soo hindiseen farta, isla markaas ay doonayeen nin walba in fartiisa la hirgeliyo. waxayna dib dhac ku timid in la qoro farta Soomaaliya, waxaana fikraddan soo nooleeyey markii uu dalka la wareegay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre 20 January 1970. waxaa la dhisay guddi afka Soomaaliya oo ka koobnaa 24 xubnood oo iskugu jiray xildhibaanayaal afafka iyo 2 la taliye. khubaradan iyo golaha sare ayaa go'aansaday in la qaato farta Laatiinka ah ee Shire Jaamac Axmed. guddigan ayaa la kulmin mudaharaadyo iyo isqabqabsi, iyagoo ku guulaystay in la qoro farta Soomaaliya. waxaana dowladda ka soo baxay sanadkii 1972 qaraar sheegaya in afka rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiyadda Soomaaliya oo yahay Maxaatiri, isla markaasna la qoray farta rasmiga ah ee af Soomaaliya. afka Soomaaliya waa luqad kushiiti ah kana tirsan dalada weyn Afro-Asiatic language, waxaana ku midaysan 300 luqadood oo lagana hadlo Geeska Aasiya, Galbeedka Aasiya iyo Waqooyiga Aasiya. waxaa halkaas noogu dhammaaday barnaamijkeenii. haddii barnaamijkan ku qanciyo, fadlan like saar. haddii aad ku cusub tahay baaweynta Rumaan Media, subscribe taawo, share gareey. waad mahadsantihiin.